الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم، قصوين qur-aanka ku soo orooray ilaahay uu inooga warramay subxaanahu wa tacaala. maanta qisadan aan soo qaadanayno waa qisad cajiiba. ilaahay wuxuu inooga warramayaa, inooga qisoonayaa, inoo sheegayaa nin warkii. ninkaasi wuxuu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa, nin cibaado badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa caalim culummadii reer banu israa'iil ka mida. wuxuu gaadhay darajada la yidhaahdo axbaaru banu israa'iil ayuu gaadhay, waa culummadooda waaweyn. ninkaa waxaa arday u ahaa 12,000 oo arday ayaa wax ka barata. waa nin caalim ah oo lagu yaqaano adduunka zaahid buu ku ahaa, qalbigiisa ma raacin. ninkaasi waxaa lagu yaqaanay alla ka cabsi badan, nin dhowrsi badan ayuu ahaa. intaa waxaa u raacsanaa nin wuxuu ahaa mustajaabu dacwa. ilaahay waxa uu weydiisto ilaahay uu ka aqbalayay. ninkaasi intaa waxaa u raacsanaa sir gaara ayuu yaqaanay. ilaahay waxa uu baray sirta magiciisa weyn ee gaarka ah, uu qofku ilaahay uu waafajiyo ee ku barya ilaahay uu ka aqbalo. ismullaahi alacdam ayuu yaqaanay, uu ku ducaysan jiray. duca alla ducada uu ku ducaysanayo ilaahay wuu aqbalaa. wax alla wuxuu ilaahay weydiisanayo ilaahay wuu siiyaa. intaasi weliba ilaahay wuxuu u raaciyey wanaag badan, khayr badan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa u doortay diintiis. dad badan buu ilaahay ka fadilay, wanaag badan ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ninkani wuxuu noolaa zamankii nebi muuse calayhi salaatu wassalaam ayuu noolaa. nebi muuse ayaa baray kitaabka tawraad. ninka magiciisa waxaa la yidhaahdaa balcaam binu baacuura. balcaam binu baacuura ayaa la yidhaahdaa. ninkaasi waxa uu ku dhashay, uu ku noolaa dhulkaa ardushaam la yidhaahdo, dhulkaa barakaysnaa, dhulka ardul anbiyaa ayaa la yidhaahdaa. meesha baytulmaqdis ay ku taalo, filistiin iyo hareeraheega ayuu ku noolaa. qoomka uu ka dhashay waxaa la oran jiray banu kancaan ayaa la yidhaahdaa. banu kancaan asalkoodu waxay ka soo jeedaan reer ciraaq ayay ahaayeen. meesha la yidhaahdo baabil ayay ka yimaadeen. way soo hijroodeen, dhulkan shaam ayay u soo hijroodeen. nebi muuse calayhi salaatu wassalaam oo qoomkiisii reer banu israa'iil wada ayaa tegay dhulka iyo shaam. kancaaniyiintu markay arkeen nebi muuse oo reer banu israa'iil wada, waxay u maleeyeen in dhulka laga saarayo oo dhulkoogii hore lagu celinayo ciraaq. sida awgeed way cabsadeen, way argagaxeen. waxay is yidhaahdeen waan idin kala kaxaynayaa. waxay u ordeen
ninkan aan ka hadlayno ayay ordeen. balcaam ibnu baacuura ayuu ordeen. waxay ku yidhaahdeen na badbaadi. waa kan muuse dhulkii shaam soo galay, waa kan reer banu israa'iil wata, wuxuu doonayaa inuu na saaro, inuu na musaafiriyo, uu ciraaq nagu celiyo. sidaa awgeed maanta noo gurmo adigu. maxaa yeelay waan kala tegaynaa, waan kala baahaynaa, waan googo'aynaa, bilaa dawlad baan noqonaynaa, bilaa watan ayaan noqonaynaa. quwaddaydii baa lumi, awood yeelani mayno. qoomkaagii baan nahay, annagaa naga dhalatay nin yahow. maanta waa maalinkaan kuu dhigannay ee noo gurmo, na badbaadi, waxna la qabo ayay yidhaahdeen. maanta ayaana laga saarin dhulkayagan. meeshan shaam waan ku kornay, waan ku barbaarnay, waan ku badannay, quwad baan ku yeelannay, ayaana laga saarin maanta. waa kan muuse ciidankiisii buu wataa. muuse waa nin xoog badan, ciidankiisuna waa ciidan fara badan. lays hortaagi kari maayo, la dagaalami kari mayno. sidaa awgeed noo gurmo ayay ku yidhaahdeen. maxaa nii qabtaa? waxaa tahay nin ducadiisa la aqbalo, ilaahay ducadiisa u aqbalo. ilaahay bari, habaar muuse iyo asxaabtiisa la socota ee reer banu israa'iila ayay ku yidhaahdeen. waxa uu ku yidhi waylakum, hoogiina ba'ah. warbiyaadaheen ma nebigii ilaahay oy malaa'igtii la socoto, oy dadkii mu'miniintii la socdaan, ayaad doonaysaan inaan habaaro? miyaad waalateen? maxaa inii dhinaaday? sidee tihiin? miyaynan ogeyn inaan muslim ahay? haddii sidaa aan yeelo oon habaaro, waxaad ogaataan adduunkaygii iyo aakhiradaydii waan waayey, waan silcay, dhibaata igu dhici, waan gaaloobay. ma nin nebigii ilaahay habaaray oo ducadiisii la aqbalay maxaa u hadhay bay ku yidhaahdeen, ayuu ku yidhi. dhinac walbay kaga yimaadeen, way ka codsadeen, way ku celceliyeen. intaba wuu diiday, kamay quusan. xoolo badan baan ku siinaynaa bay yidhaahdeen, hanti badan baan ku siinaynaa, darajo ayaan ku siinaynaa, madax baan noo noqon bay yidhaahdeen, dumar badan ayaan ku siin, waad guursan. waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaa dhigi mas-uulkayaga, adigaana maamuli, hoggaanka adaanu kuu dhiiban. dhinacii adduunkaa lagaga yimid. ninkii wuxuu bilaabay inuu fikiro, inuu arrinta rogrogo, inuu eego. iimaankiisii baa daciifay, iimaankiisii ayaa daciifay. ma ilaahay ayuu ka tegi oo shaydaan buu raaci? ma iimaankiisan ayuu ka tegi oo gaalnimu ka dooran? ma aakhiro ayuu iloobi oo adduunkan gaaban ayuu dooran? naftiisii baa daciiftay, iimaankiisii baa daciifay. maal ayuu doortay oo adduunkiisii, diintiisii ku iibsaday. adduun ayuu aakhiro ku beddeshay. gaalnimo ayuu ka doortay iimaankiisii. ayuha alaxibba, ibtilaaha ugu daran, imtixaanka ugu daran waa iimaankaaga oo ilaahay uu ku sejiyo. waxaa ugu weyn, nicmad ugu weyni waa nicmatu liimaan, waa nicmatu lislaam, waa nicmatu lqur'aan. taa wax ka fiicani ma jiro. laakiin imtixaanka ugu daran, ibtilaaha ugu daran waa maalinka aad gaalnimada dooratida islaamka aad ka tagtid. waa maalinkaad iimaan weydid, aad gaalnimo iyo shirki ku dhacday. maalinkaasaa ugu daran. allahuma thabbitna cala aliimaan, allahuma thabbitna cala alislaam. way fitneeyeen, diintiisii bay ka fidneeyeen. kadib wuxuu yidhi waan habaartamayaa, habaar baan doortay. wuu dhaqaaqay dhinaca iyo boortii nebi muuse agtiisa ahayd ayuu koray. wuxuu doonayaa inuu habaaro nebi muuse iyo dadka mu'miniinta ee raacay. ilaahay carabkiisii buu beddelay,
markuu yidhaahdo nebi muuse habaar wuu duceeyaa markuu yidhaahdo kancaaniyiinta u ducee wuu habaaraa arrintii baa isrogtay waxay ku yidhaahdeen war maxaa ku helay miyaad waalatay inaadna habaaraysid miyaad arkay ood muuse iyo asxaabtiisiina u ducaynaysid waxa uu yidhi wallaahi ma garanayo arabkanna anigu ma hayo ilaahay baan rogaya laa amliku gayra dalik arrinta arrin aan ahayn anigu ma hayo arrintana iraadadeyda way ka baxsan tahay doonisteeda way ka baxsan tahay maxaan samaynaa bay yidhaahdeen haddaba dhulkii baa la qaadan waddankii baa la qadi wax walbaa la waayi waanu kala tegi waanu baabi'i maxaa yeelna noo fikirnin iyo wuxuu yidhi balcaam binu baacuura oo hadlaya lam yabqa ila almakru walxiila wax hadhay male anu khalaas diinkaygii waan waayey laqad daacat mini alaakhira bihada asaniic ficilkan aan sameeyey aakhiraan ku waayey diintaydii waan waayey arrin baa ii hadhay khalaas arrintaasi waa maxay inaan makrin la nimaadno iyo xiilad siyaasad inaan la nimaadno inaan shitaarad la nimaadno inaan dhinac kale ka nimaadno waa dhinacee dhinaca macaasida inaan dhexdooda aan macaasi iyo xumaan aan ku faafinno xumaantu hadday ku faafto zinadu dhexdooda ay ku faafto macaasida ay ku dhacaan ilaahay u nusrayni maayo malaa'igtu way ka tegi dhexdooda balaayo ayaa ku soo degi liannahu ما نزل بلاء إلا بذنب بلا ما سو دegto إلا ذنب bay la soo degtaa marka sida awgeed baladan iyo imtixaankan iyo waxan si ay ugu soo degto waa inaan dhexdooda macaasi aan ku faafino sida awgeed ilaahay u kaalmayni maayo marka ilaahay u kaalmayni maayo malaa'igtuna way ka tegi wax u kaalmaynaya ma jiro ninkii shalay wanaagga dadka amrayay xumaanta ka reebayay macsiba ku dhacay gaalnimo ku dhacay dhinaca kale uga baxay isagii baa dadka xumaan iyo shar iyo waxaan fiicnayn amraya waxa uu yidhi dumarkiina qurxiya dumarkiina kancaaniyiinta dumar waaweyn oo qurqurux badan ayaa lagu yaqaanay dumarkaasi ha iska dhigaan sidii dad wax iibinaya reer banu israa'iil ha dhex galaan fiyaan xumaanta iyo zinada dhexdooda ayayna diidin ragga hala qaato dhexdoodu markay xumaantaasi ku faafto ayaa waxaa dhici in ilaahay u nusrayn waayo ayaa dhici malaa'igtuna ay ka tagto kadib nin baa u yimid sidii bay yeeleen nin baa nebi muuse u yimid calayhi salaam naag qurux badan buu wataa markaasaa waxa uu yidhi waxaad ii odhan doontaa muusow tani xaaraan bay kaa tahay laakiin kuma addeecaya buu yidhi uu kaxaystay gurigiisuu la tegey ilaahay daacuun ayuu dadkii ku salliday xanuunkan daacuunka ah ayuu ilaahay ku salliday 70,000 oo qof ayaa dhintay nin la yidhaahdo fanxaas ibnu ciisaar ayaa arrinkii maqlay kadibna seeftiisii buu soo qaatay iyo warankii labadii xumaanta samaynayay ayuu dilay uu nafta kaga qaaday markaasaa waxa uu yidhi allahuma haakada nafcalu biman yacsiik ilaahow qofka ku caasiya sidaasaanu yeeli oo waanu dili ilaahay daacuunkiibuu ka kor qaaday dadkii way ladnaadeen 70,000 oo qof baa ku dhintay intii kale ilaahay uu ka caafiyey waxay ahayd fitnadii ugu horeysay ee reer banu israa'iil lagu halaagay dumar ay ahayd sida awgeed nabigu waxa uu yidhi fattaqu allah ilaahay ka cabsada wattaqu nisaa dumarkana iska ilaaliya fa inna fitnata bani israa'iil fitnadii reer banu israa'iil lagu halaagay kaanat fi nisaa dumarka ayay ahayd walaalayaal qisada cajiibka ah ayuu ilaahay inooga warramayaa subxaanahu wa tacaala ninkaa la imtixaanay ninkaasi aakhiradiisii adduunku iibsaday diintiisii adduunku iibsaday ninkaa fidnoobay ilaahay waxa uu leeyahay suuratu alacraaf
isaga oo kaga warramaya aayadda 157 watlu calayhim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلهي وحا أوليه النبي الله واتل عليهم كو أخري وركي كي وركي سيكو أخري نبأ وحا وركا وين بالي هذا النبأ إلهي وحا أوليه واتل عليهم تبككو أخري الشيء النبي الله نبأ الذي آتيناه آياتنا كان آيات كيجي سيني آياتنا بو إلهي آيات كيجي وان كراميني وان وناجيني دعاء كأقبليني اسم الله الأعظم ما سيني علم بدن ما برني تقبا كدغني قف صالحا كدغني قف عبادة بدن أيان كدغني وحان أدورني دين تيدي فانسلخ منها وكدح بحي وحي أردن وكدح بحي فانسلخ منها وكبحي وكتجي فأتبعه الشيطان شيطان ما تبقى لمرك الراعي فكان من الغاوين كوي اللي ما أيوك من نقضي هلاك سمي إلهي وحوله ولو شئنا هدي أن دونه لرفعناه بها قربا وقاد لهين ومقعبا يري لهين عالم وين بقي عيسى ترسيل لهين ولكنه أخلد إلى الأرض لكن قلكو اسكدتشي dhulka ayuu doortay quruxda adduunka ayuu doortay wattaba'a hawaa hawadiisii buu raacay waxay naftiisu ay doonaysay ayuu raacay ilaahay mathal xun buu ku tilmaamaya wan iyadu billah ilaahay waxa uu leeyahay famathaluhu kamathali alkalb kaasi tusaalihiisu wa ay oo kale kamathali alkalb in tahmil alayhi yalhath ayga haddad eridid od eriyatid carabku laalaadin أو تتركه أما أتكد يسيد يلهث عرب كل الله أما وحشاق ويسميه سيدا أي قاس أو كلا أما إريو أما هائرين أما حقا جودو أما هدرك سنادو عرب كأيو لولا يمر وضع ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كو آياتها يقوم كبيني الساس لديك ما بي إلهي فقصص القصص ورنكا أقورهم قصص كاس لعلهم وحي مديهين يتفكرون إن فكران آيات كاسي وحي إن لي فكرة قف كاسي الدين تيسيبو إيبي عقيدة يسيبو إيبي عقل يسيبو إيبي دمير كيسيبو إيبي وحي إيبي مستقبل كيسي وناكسنا آخر أيو إيبي دين تيسي الدون بكو دورتي مالي مير الدون ير أوفانية وتغيى أيكو دورتي أحبتي في الله مثل حنويان وتصالح منك الشيخ عالمك إنو دينتي سي إيبيو إنو إلهي كبان شاقو إنو الدون ير دورتو أو قرح ديدي إيو للدلال كيغا إنو دورتو إنو نكي داعيقا أها شالي تولي ما أنتنا داعي إلى الضلالة حمان ضدك أويارو وأرن آدي آدو فالحن إلهي مروحة كنت المامي كالكل أي بكنت المامي مركا مثل الذين حملوا التوراة حمار بيلهي مركانا كنت المامي ذاتك مركا يسعايا وحان كلبيغا أيغا iyo waxaan dameerka ayay isiraahdaan waa shay xun ee la isku aayo walaalayaal ibtilaaha ugu weyn waa iimaankaaga laga ibtileeyo imtixaanka ugu weyn waa imtixaanka diintaada laga geliyo sida awgeed qofku waa inuu mabda'iisa haysto waa inuu ilaahay in badan u bariyo inuu ilaahay mabda'an iyo diinta ku sugo oo ku dhinto fitnada in laga digtoonaado mar walba waa fitnatu nisaa dumarka in laga digtoonaado sharka dumarka laga digtoonaado waa in ma aragtay dumarka loo xijaabo dumarka waxbay fidnayn karaan nacam dumarku way wanaagsan yihiin dumarka khayr badan bi ilaahay ku sugay dumarku waa kuwa ragga dhalay waa kuwa anbiyaada dhalay waa kuwa hooyadeen iyo walaasheen iyo dumarku khayr badan ayaa ku jira laakiin haddii la doono in ragga lagu fidneeyo si fudud ayaa loogu fidnayn karaa sida awgeed waa in dumarka loo xijaabo وإن دين تلبرو أحبتي في الله وحلو بهيهي إن دين تينا كفانو إن نسك إلى لنو إن إلهي معاسديس أن كدعنو هدان كدعننا وإن توبت كينو مرو والبنا وإن
inaan iimaankeena iyo diinteena iyo caqiidadeena aan ku dadaalno taasaa guula taasaa khayra taasaa wanaaga taas weeyaan tayna badbaadinaysa adduun iyo aakhiro xalaqa kale ayaa jirta oo inagu soo socota oo qisaska aan kaga warramayno qisasun fi lqur'aani alkariim la socod wanaagsan وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين